Ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa mahad oo dhan u sugnaatay. Intaas kadib waxaan mahad gaar u jeedinaynaa ka soo qaybgalayaasha xafladdeennan ay ugu horreeyaan culimaaddinka Soomaaliyeed oo qiimaha leh, ducaadda, aqoon-yahanada, ganacsatada, waalidiinta, bahda kaamiramanada, odayaasha dhaqanka, iyo dhammaan cid walba oo waqtigeeda qiimaha badan maanta inoo hurtay sidii ay noola soo qayb gasho xafladdan qiimaha badan oo munaasabaddeedu ay tahay daahfurka faraca labaad ee macadka Qura ee lagu barto culumta shareecada Islaamka iyo Qur'aanka Kariimka. Waxaan idin leenahay ku soo dhowaada xafladda daahfurka ah oo aan ugu talagalnay maantay inaan ku daahfurno faracii labaad ee yeelanayso Qura Boarding Institute ama macadka barashada culumta sharciga ee Qura. Waxaa sharaf iyo qiime inoo ah inaad maanta inala joogtaan, inaad nagala soo qayb gashaan annagoo furayna daahfurkii xaruntii labaad ee Qura. Xaruntan waxaa loogu talagalay ay gaarna u tahay barashada iyo xifdinta Qur'aanka Kariimka ah iyo culumta sharciga ah. Qura hore waxay u lahayd xarunteeda weyn oo lagu barto qaybta nidaamiga ama maadiga, laakiin xaruntan waxay gaar u tahay barashada culumta Islaamka iyo sidoo kale Qur'aanka. Marka waxaa sharaf inoo ah inaad nagala soo qayb gashaan furitaanka iyo daahfurka xaruntan maanta ay taariikhdu tahay 13 bisha shanaad 1446 Hijriya, waafaqsan dhanka kale 15 bisha 11aad 2024. Waxaan idin leenahay ku soo dhowaada qalbi furan, gacmo furan, walaaladin jecel, waqtigiina qiimaha badan ee maanta inoo horteenna waan idinkaga mahad celinaynaa kuman malaayiina. Waa inoo furan yahay barnaamij xafladeedkeennii aan ugu talagalnay daahfurka faraca labaad ee macadka Qura. Waxaanu leenahay soo dhowaada.